waxaa maanta si ballaaran looga dabaaldegay guud ahaanba deegaamada iyo degmooyinka gobolka Sanaag xuska sanad guurada 22aad ee ka soo wareegtay go'aansitaanka iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland. Magaala madaxda gobolka Sanaag ee Ceergabo oo ay ku qabsoontay munaasabadii ugu ballaarnayd ee dabaaldega 18 May ee dhinacyada degmooyinka gobolka Sanaag ayaa waxa ay ka dhacday garoonka kubadda cagta ee Dal Stadium iyo fagaaraha labaad ee Beerta Xorriyadda ee Nuura, halkaas oo ay soo buuxdhaafiyeen kumanaan ka mid ah qaybaha kala duwan ee ku dhaqan bulshada gobolka Sanaag oo ay wajiyadooda laga dheehanay dareen shucuur wadaneed xambaarsan kuwaas oo ku labisnaa calanka iyo astaamaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Shaqaalaha dawladda, ciidamada kala duwan ee qalabka sida shirkadaha gaarka iyo ururada bulshada ayaa iyaguna maanta si aan hore loo arag uga soo qayb galay munaasabada 18 May. Wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag iyo ardayda dugsiyada magaalada Ceergabo ayaa iyaguna maanta fagaaraha dabaaldega ka dhigay mid lagu indhandarandaro marka loo eego direyska, boorarka iyo halkudhigyada ay halkaas ku soo bandhigeen. cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka iyo kuwa asluubta ayaa iyaguna fagaarahaasi ka muujiyay wacdaro lixaad leh, iyagoo halkaasna ku soo maray socod gaada ka ciyaara oo ay ku salaameen calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka dhex babanayay fagaaraha garoonka kubadda cagta, halka ciidanka booliiskuna ay u xir saarnaayeen sugidda ammaanka ee gudaha magaalada iyo fagaarayaasha ay xafladuhu ka dhacayeenba. Dowladda hoose magaalada Ceergabo, wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, ururka haweenka ee wasaaradda deegaanka, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda beeraha, wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo wasaaradda qorsheynta ayaa iyaguna halkaasi wacdaro ka muujiyay, halka dhinaca shirkadaha ganacsiga ee gaarka loo leeyahayna ay hormood u ahayd shirkadda Beder ee korontada. waxaana munaasabadan bulshada reer Ceergabo kala qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga, gudoomiyaha gobolka Sanaag, maayarka degmada Ceergabo, madaxda dhaqanka iyo mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo. maayarka degmada Ceergabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo fagaarihiis munaasabada 18 May dadka kala hadlay ayaa ku nuuxnuuxsaday qiimaha maalintan ugu fadhido shacbiga reer Soomaaliland iyo sida madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u tahay lama taabtaan. Jamhuuriyadda Soomaaliland waa la go'aansaday, ummadda Soomaaliland ma go'aansatay. gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Maxamed Geelle Dacar oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa shacbiga gobolka Sanaag ku bogaadiyay sida wadaneedu ay ku dheehan tahay ee ay u muujiyeen qiimaha maalintan ay bulshada Soomaaliland ugu fadhido. waxa iyaguna halkaasi hadallo ku wajahan madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida ay shacbiga uga tolan tahay meel marinta qadiyadooda halkaasi ka soo jeediyay salaadiin, aqoon-yahano iyo waxgarad aad u tiro badan oo dhammaantoodba beesha caalamka ugu baaqay inay garwaaqsadaan rabitaanka iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaa kaloo isaguna munaasabadaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga Aadan Diiriye Cigaal Geerjiro oo isaguna dhankiisa shacbiga uga warramay halgankii dheeraa ee loo soo maray la soo noqoshada madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida loogu baahan yahay in meel looga soo wada jeesto wax kasta oo dhaawici kara ammaanka iyo horumarka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku caanamashay. wasiirka wasaaradda